ولقي مسؤولين هذا اللي بعتصنا لكن مرة واحد شفتها قرضا كان حسيتها مركز مساعد كلام مارتي إن الله قاله ولا سي تكذو لكن سي تحناء qof aan soomin weligii intuu dunida saarnaa tukan salaada muddo uu ku sheegay 20 sano caba qamriga la tunta ama la jiifta hablaha xaaraanta ah ee uusan qabin sidoo muslimku yahay adoonka iyo allihiisa abuuray mar waliba qof u dhaxeeya ma jiro ruux waliba amalkiisa ayuu la tagi doonaa aakhiro oo la soo istaajinaya qiyaamaha waa naxdin iyo wax la lafjaco inaad aragto ruux kugu af iyo diin sheeganaya haddana ku faanaya inuu diiday abaamirtii allihii ku abuuray isagana abuuray naartana rajeynaya inuu maalinta qiyaamo galo waxaan eegdowkaad waxna waa practical waxna waxa kutubta ku qoran si wanaagsan anigu sina iyo khamri iyo dhac iyo waxaan horta adduunka soo sameeyay ma jiro waa ku soo wada laakiin inaan waxaan rabaa an laakiin haddaad leedahay quraan bay ku taal iyo kutub halkan ay ku taal waa story adduunkan joogistiisu ay imtixaan ku tahay ayaa xakameyn lagu sameeyay nafteena si looga badbaadiyo cadawga shaydaanka ee garbaduubka ugu jira sidoo inoogu horseedi lahaa jaxiimo balse nafsadeena oo mararka qaar ay dunidu la tagto ayayna ku dhacnaa dambiyaad iyo waxyaabo diintu ay naga xaraantimaysay laakiin ka toobadkeenka ayuu alla ku faray mar walba oo uu dambi ka dhaco haddaba ma nahay kuwa ceebka saliina oo wax dambiya aan galin jawaabtu waa may way jiri karaan 1 2 3 ilaa 4 qalad oo dhanka diinta ah kuwa oo aad ku dhacdid inta aad dunida saaran tahay ruuxa aan ka hadlayo waa qof isaga iyo qabiilkiisaba u balmiyay naarta isagoo cuskanaya in qabiilkaasi aysan janno arkin maalinta qiyaamo duniduna ay tahay meel iyaga loogu talagalay inay ku raaxaystaan Mustafa Martin waa Soomaali sheegtay inuu yahay muslim laakiin sidoo afkiisa ka qirtay aysan ka muuqan halna xitaa astaamihii muslimka inuusan tukan 20 sanadood salaada soomin weligii ayuu qirtay isaga oo iska jeejeesaya ama ku faraxsan dayaca diimeed ee uusan dambigu waarag waxay ka darneed markuu yiri weligay ma soomin mana ku tala jiro sameynta soonka bisha Ramadaan ee sanad walba soonka weligay ma soomin waa burinta laba ka mid ah tiirarka aasaaska waa muslimnimada soonka oo ay waajib tahay ruuxa inuu soomo sanadkii 30 bari oo ka mid ah bisha Ramadaan iyo salaada oo maalintii ruuxa muslimka lagu waajib yeelay 5 waqti inuu ka tukado ayaa ruuxii si cad uga tagaa uu yahay kaafir munaafiq ah oo alle iyo rasuulkii ka furtay sida aynu ka soo xigan karnaba aayado quraan ah oo Ilaahay inoogu cadeeyay iyo axaadiis laga soo xigtay rasuulkeenii suubana sallallahu alayhi wasallam toobada oo Faranse ruux waliba ma toobad keeni karo ama kama noqon karo dambigu galay ilaa inuu Ilaahay ugu naxariisto mooyaane sheebkan daadu ay si ciirinayso inaga oo aan ataagin markaynu qiimeeno ama si gooniya u eegno hadaladii uu ku dhax sheegay waraysigaasi qaabkii uu wajigiisa u muuqday iyo dhoola cadeyn qosol wadatay oo su'aalaha qaar uu kaga jawaabayay waxa cadeyn buuxda loo heli karaa in islaamnimadiisu ay tahay mid aad u hooseysa ama aad u yar Allah aynu ka baryeena inuu hanuunka tuso wadada toosan ku aadiyo walaal adiguna walaalkaaga muslimka u duceeysi oo Allah hanuunka u siiyo maxaa yeelay adduunkan waa laga tagayaa